waxay soo gashanaysaa jilbaab dhinacyada ka jeexjeexan aad u moodo in labada dhinac laga geli maqas way isla fiican tahay way quslaysaa magaalada ayay dhexmaraysaa suuqyada ayay dhexmaraysaa gawaaridii BL-ka ayay saaran tahay bajaaj ayay saaran tahay iskuulka ayay ku soo aadaysaa jaamacadda ayay ku soo aadaysaa way qaawan tahay markaad tiraahdo xijaabkan jeex maxaa markaad tiraahdo waa caadiye waa 2023 ay ku leeyihiin dumarku ama gabadhu waa hilib geed saaran maadaama marka gabadhii ay tahay hilib ay tahay oo kale oo cid kasta ay damcayso qowleysta kasta oo damcaayo unreeska hataa oo damcaayo unrees hadda koor waxaa la yidhi unreesow hay maxaa haysaa lir markaas wuxuu yidhi aniga guur waa iska rabi lahaa naag aroos waa iska rabi lahaa laakiin walaalkeedan ka baqa meel marka unreeska ama tukulishka ama dabagaalihii uu ka damcay gabadh inuu guursado maxaa malaysay midka meelaha marmaraayo oo handale gabadha jirkeedii oo banaanka soo dhigtay arkaayo aakhir zamaan ayaa la marayaa gabdhihii way kasii darayaan walaalaha muslimiintow jilbaabkii waa lagu soo duulay jilbaabkii sharciga ahaa waa lagu soo duulay dhinac walba ayaa loogu soo duulay magacyo fara badan ayaa loo bixiyey qaar la yidhaahdo v qaar la yidhaahdo isku days iyo kuwa kale oo fara badan haddaba xijaabka sharciga waa mid oo qurac waxaad arkaysaa gabar xijaaban oo laakiin qaaban qaybna xijaab ayaa ka sidataa dhinacyadeeda iyo keliyadeedana way qaawan yihiin waxay isku moodaa inay xijaaban tahay oo jalbaab sidato laakiin waa bilcagsi waayahan waxaa soo baxay jalbaab ay ku magacaabaan v xijaabka sharciga ah shuruudo ayuu leeyahay tilmaamo ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ugu hadlay kitaabkiisa munazalka ah haddaba ma haboono in jalbaabka hadba dhinac loo rogo hadba magacyo kala duwan loo bixiyo waxaan la hadlayaa harqaanleyda iyo dawaareyda oo aalaaba ku mashquulsan sidii moodal cusub ay ugu keeni lahaayeen xijaabka sharciga ah ayna u bedeli lahaayeen inay iska dhaafaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ugu baqaan waayo dembiga qayb ayay ka leeyihiin soomaali waxay ku mahmahdaa tuug waa labo qaade iyo qariye ninka dawaarlaha ah oo harqaanlaha ah mar walbo oo wax sharciga baalmarsan ama dhar sharciga baalmarsan oo islaamka uusan ogoleen uu talo waxa weeye dembiga qayb ayuu ku yeelanayaa sheer ayuu ku yeelanayaa maxaa yeelay gabdhaheenna soomaaliyeed alaaba waxay soo tashaan jalbaabo aan ahayn jalbaabkii sharciga ahaa gabadhi waxay soo gashanaysaa jalbaab ku gaaban misne dhinacyada ka jeexjeexan aad u moodo in labada dhinac laga geli maqas way isla fiican tahay way quslaysaa magaalada ayay dhexmaraysaa suuqyada ayay dhexmaraysaa gawaaridii BL-ka ayay saaran tahay bajaaj ayay saaran tahay iskuulka ayay ku soo aadaysaa jaamacadda ayay ku soo aadaysaa way qaawan tahay markaas waxaa u moodaaba in jalbaabkii uu labada dhinac ka jeexan yahay markaad tiraahdo xijaabkan jeex maxaa markaad tiraahdo waa caadiye waa 2023 ay ku leeyihiin jalbaabkii wuxuu noqday maadeys ayuu noqday iyo wax la gediyo oo hadba sanad walba cusub la bedelo gabdhaha Soomaaliyeed waxaan ugu baaqi lahaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay ka baqaan xijaabka sharciga ahna ay qaataan sida sharciga uu ogol yahay u tashaan ayaa ugu nasteexeen lahaa aakhir zamaan ayaa la marayaa gabdhihii way kasii darayaan
waxa ay ka daawadeen shaashadaha tviyada iyo social mediaha oo dadka reer galbeedka ama dadka qurbaawiyiinta oo qurba jooga ama diaspora sida ay u libistaan oo kale ay u libisanayaan gabdhahan Soomaaliyeed sidaa darteed marka waxaan ugu nasteexin lahaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ka baqaan jalbaabkana si wanaagsan oo quman ay u tashaan oo asturaan gabdhaha Soomaaliyeed waxaan kula daarmi lahaa inay macnaha ii sheeg xijaabka sharciga ah sida loogu talagalay sharciga iyo islaamka uu ogol yahay inay u tashaan jirkoogana ay asturtaan maxaa yeelay gabdhaheena waa dheeman Soomaali xukumaha mahdaa dumarku ama gabadhu waa hilib geed saaran maadaama marka gabadhii ay tahay hilib ay tahay oo kale oo cid kasta ay damcayso qowleysta kasta oo damcaayo unreeska hataa oo damcaayo unrees hadda kor waxaa la yidhi unreesow hay maxaa haysaa liir markaas wuxuu yidhi aniga guur waa iska rabi lahaa naag aroos waa iska rabi lahaa laakiin walaalkeedan ka baqa meel marka unreeska ama tukulishka ama dabagaalihii uu ka damcay gabadh inuu guursado maxaa malaysay midka meelaha marmaraayo oo haddana gabadha jirkeedii oo banaanka soo dhigtay arkaayo waxaa laga yaabaaba in uu damco hunguriyeeyo oo dhibaato u geysto saa darteed marka gabadha asturan oo xijaaban waxa weeye ugaarsigeeda waa yar yahay halka gabadha qaawan ugaarsigeeda uu badan yahay shaydaanul insi iyo shaydaanul jinni oo wada socdana ay quudaraynayaan ay damcayaan saa darteed marka gabdhaheena sharafta leh waxaan kula dadaarmi lahay marka ugu dambayso in ay xijaabka ay adkeeyaan xijaabka sidii loogu talagalay ay u xirtaan si wanaagsan ay u soo tashaan wajazaakumullahu khayran muuqaalka sii sheer gareeya faafiya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh